Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan idinku salaamay dhammaan akhristayaasha iyo xiiseeyayaasha muuqaalkan. Salaanta ay isku salaamaan dadka ahlu jannada ee Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa mahad ballaarani u sugnaatay Allihii igu guuleeyay inaan dhammaystiro muuqaalkan qiimaha iyo qaayaha mudan ee aan kaga hadlayo muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay qofka bini'aadamka ah. Ugu horeyn, waa maxay waxbarasho? Ereyga waxbarasho wuxuu ka kooban yahay 10 xaraf. waa wax kasta oo lagu tilmaami karo inuu yahay shay. Barasho waa raacid ama daraasayn. Waa wax qofku ku gaaray go'aan inuu ku bixiyo waqti iyo hanti. Waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay heerar kala duwan, taasi oo ah heer qofka waxbarta lala yaabo oo la yiraahdo wuxuu doonayaa gaalnimo, heer waqti loo mari jiray socod dheer si loo helo qof leh in yaroo cilmi, heer xilli ay wax baran jireen dadka ladan oo lacagta haysta, heer waqti dadka la siiyo waxbarasho lacag la'aan ay yiraahdaan dadkayaga yaan nalaga gaalsiin. Weliba waxay ku dhacday gobollo ka mid ah Soomaaliya. Iminka markaad eegtid ay kaaga bidhaamayso halka ay aqoon la'aantu ka marayso. 4 su'aalood muhiim ah inuu isweydiiyo qofka wax baranayo. Su'aasha koowaad, maxaan wax u baranayaa? Su'aasha labaad, maxay faa'iido ii leedahay waxbarashadu? Su'aasha saddexaad, maxaan dadka jaahilka ah kaga duwanahay? Su'aasha afraad, maxaa la ii gelin kharashka iyo dadaalka intaa la eg? Waxaan u hubaa sidaan geeridayda u hubo in qofka su'aalahani uga jawaabo sida saxda ah inuu ka aflaxeeyo waxbarashadiisa iyo mustaqbalkiisa ku soo food leh. Horumarku wuxuu ku xiran yahay waxbarashada. Qof walba waxaan ula talin lahaa inuu wax barto, maxaa yeelay waxbarashadu waa furaha nolosha. Haddii aad rabto inaad mustaqbal gaartid, waa inaad wax barataa. Waxaan filayaa inaad hadafkiina gaari doontaan insha Allah. Biliis hanaga ilaawin like, share iyo subscribe. mahadsanidin.